daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeennii shalay mise maanta hadda saad u jeedaan waxaan ku sugannahay albaabka telefishinkani SRTV waxaananu doonaynaa inaanu uga kuurgalno si aanu kormeer ugu soo samayno anshaxa ciidanka iyo sida loola dhaqmayo xabiistani ku xidhan magaaladani jigjiga qaar ka mid ah jeerashooda haddaba saanu soo eegno nolol maalmeedkooda iyo xaaladooda nala joog wanaagsan حقيقيا markaan ka hadlayno commissionka asluubta maanta ay kii shalay su'aasha horta waxay ku fiicnayd marka hore in la weydiiyo bulshadii soo martay shalayna joogtay ee xabsiyada ku jirtay iyo bulshada maanta xabsiyada ku jirta waliba gaar ahaan hadana kuwa maanta xorriyadooda helay ee banaanka jooga iyo hay'adaha xuquuqul insaanka iyo runtii ka jawaabi lahayd iyo ku habboon su'aashaas sababtoo ay tahay maadaama hadda xafiiska aniga aan joogo hadana maanta waa sidan iyo sidan waxay noqonaysaa faan laakiin waxa fiican dimuqraadiga nolol jooga ee shalayna xabsiga soo maray laga yaabaa maanta in hadana dib u soo mareen iyo bulshada iyo hay'adaha ku shaqale bay ahayd in su'aasha la weydiiyo balse hadda aniga weydiisay waxaan u arkaa inay tahay arrin runtii la dhihi karo waxa u dhaxeeya farq weyn commissionka asluubta ama xabsiyada asluubta ee shalay jiray iyo kuwa maanta jiro waxa uu ah ilaalinta xuquuqul insaanka shalay waxaad ogtahay waxa ka dhaci jiray xarumaha asluubta tacdiye aad u fara badan oo kumanaan qof ay naftooda ku weeday kumanaan kale ay ku dhaawacmay kumanaan kale caafimaad darro iyo xagga dhimarka ay dhibaato ka soo gaadhay oo ilaa maanta ay la dala dhacayaan dhibaatada ka soo gaadhay laakiin maanta waa commission asluub jira isla markaana fulinaya waajibaadkii loo aas-aasay xafiiskan oo ah in muwaadiniinta kala gedisan dambiyada ay ka galaan dalka markay maxkamadda soo xukunto in loo dhaqan celiyo lagu soo dabaalo sharciga ayagoo aan erdigooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda meel aan lagaga dhacinin in macnihi markaasi la dhaqan celiyo muddadii la soo xukumay xukunkooda dhameystaan taasi waa taawiye marka arinta ugu muhiimsan markaan wax ka bedelno waxa ka ah ilaalinta xuquuqul insaanka ayaan ku faani karnaa laba waxaan ku faani karnaa nidaamka ay howlgeliyaan ciidanka iyaga saddex waxaan ku faani karnaa xafiiska marka hore anaga aan imaneynay ama nidaamkii hore u asaasnaa maadaama garan maray wax ma lahayn xoroosaad ah wax bayaan oo faahfaahsan oo xuquuqaha ay leeyihiin maxaabiista muusan jirin laakiin haddaan dib u yeegleynay marka maanta waxaan oran karnaa waa xafiis iswadi kara oo fahansan jihada iyo nidaamka laga rabo inuu waafajiyo shakhsiyaadka dambiyada kala gedisan kale ee ku jira xabsiyada si loo heli lahaa isla markaas waxbarashada loo ogaan lahaa caafimaadkooda cuntadooda booqashada eheladooda barista diinta islaamka in macnaheedu dadkii wanaagsan in bulshada soo soo noqon lahaayeen iyo maanta fahansiin ciidanka iyo saraakiisha kala duwan ee ka howlgelisa xafiiska markii la leeyahay booliska asluubtu wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale hay'adaha kala duwan hadday noqoto ciidamada gaarka nidaam u tababaran yihiin ilaalinta amniga ilaalinta xadka iyo tababaran yihiin sidoo kale ayagana booliska caadiga ahna ayagana waxay ka howlgalaan magaalooyinka oo dambiyada ka hortagaan ama ka daba tagaan oo soo qabtaan kadib sharciga marayaan kadib markii qofka la soo qabto la baaro xeeraantii maxkamadda la soo mariyo kadib ku dambeeyaan asluubta anaga marka waxaan noqonaynaa dhaqan cilmi baan noqonaynaa dhaqan toosin baan noqonaynaa inaan dadkii sharci ku soo dabaano marka sidoo kale waa ciidan tababaran isku tababar biilihiin gaar ahaan hadana waxay u sicabsiin kooyaga sidii qofka xuquuqdiisa loo ilaalin lahaa isla markaana muddada uu xabsiga joogo in la dhaqan celiyo sharciga lagu soo dabaalo isbedel lagu keeno soo hadhow bulshada soo xor bulshada soo nabadgelyo ugu soo noqdo isla markaana horumarka iyo howlaha soo qaadan lahaa ciidanka markaan xulanayna hadda marka hore waxa lagu xukumay ama qof dacadow ah ama dadka dhibaateyn kara ama dili kara ama sharciga aan aqoonsanayn ama wax u baranay baahayd laakiin hadda maanta markaan ka hadlayno waxaan ku xulanaa qofka waa inuu wax dambi ah hore oo soo gelin dalka uu yahay qof aan dambiile ahayn oo san ahayn labo waa in
caafimaadkiisa uu taam yahay maskaxiyan iyo caqliyan saddex waa inuu waxbarashada ilaa ugu yaraan galaaska 8 waa inuu dhigtay ilaa heer jaamacadeed afar dherarka qofka iyadana shuruudi ka mid tahay marka inahaas oo de si faahfaahsan baan inta badan culays ka saarnaa in jirkiisa dhameystiran lixdiisa lixaad ama qof lagu la uusan ahayn ama qof gacan la uusan ahayn ama qof naafa uusan ahayn uu yahay laakiin qof jirkiisa taam yahay oo tababarka geli kara shaqadana ka qaban kara ciidanka asluubta waxa uu dheer markii ay soo qalin jabiyaan waxa loo qabtaa tababaro kale yaasiina oo ah sida loo ilaalin lahaa xuquuqul insaanka in dadka meesha ay ku xidhan ninkan waa askari weeye wuxuu imanaya bini aadam weeye dadka meesha ku jira waa dad bini aadam weeyaan in marka xuquuqdooda uu ilaaliyo weeye nidaamka marka hore tababarku ku jirta lafteeda sida loo ilaalin xuquuqaha sababtoo ay tahay qofkan waa maxbuus halkan ku xidhan yahay sharcigu xidhan yahay dawladdu xidhan yahay adigu kuma xidhna adiga laakiin waxa lagu yiri ilaali caafimaadkiisa oo cuntadiisa oo waxbarashadiisa oo إهليسا صوب بقدان قف أنا حر بين آدم بنك حريتي بناكم بوايه لكن جذها وقف بين آدم مركو كتير قفكو محبوس كجذها كتير أسكري وكحد بدبا دبعتو جيسال لإيه ولا قيمين كده وحكوها بوم بلاغ تلاوكها بوم بلاغ عليه. داوديال هذا سوت شيء ده وحنا كسوغان هاي حرونتا بوليس كوميشنكا أسلوبتا وحنا أكتر فردية تليها عيدنكا iyo maamulka maxaabiista marka isagana su'aalo weydiin doona askartan maxaabiista ilaalisa ama asluubta miyayna dadku ayna isla dadku lahayn mise waa ciidamo cusub oo la qoray mise waa kuwii hore isbedel lagu sameeyay kulli ciidanku haddaan ku jiro isbedelka inta ka horeysa saddex qaybood buu u qaybsamay macnaha ciidanka asluubtu wuxuu ahaa saddex qaybood oo ciidanku u qaybsamay ciidanka laftooda waa la bahdili jiray oo dad xuquuq iyo nidaam haysta midna maynan ahayn dad la bahdilo oo sida kolba la rabo in ay u dhaqmaan macnaha loola dhaqmo oo la isticmaalo ay ahaayeen marka saddexda qodob ee u qaybsameen waxay ahaayeen qayb u dhawar adeegta tacaddigii loo geysan hayay ee maxaabiista iyo dadka iyo deegaanka loo geysan hayay qayb u dhawar adeegto oo ama ka qayb qaadato macnaha maartay tacaddigii iyo qayb la xidho oo iyagii laftooda tacaddiga lagu sameeyo maxaabiista lagu daro iyo qayb laga eriyo shaqada oo iskaga kala cararta shaqadii ka cararta marka hadda anu tusaale ciidankii la dhibaateeyay ee waxaan ahaa maxaabiista kamid ahaa maxaabiista la dhibaateeyay kamid ahaa ee lagu daray baan ugu ahaa markii dambana waan iskaga tagay oo dadka shaqada laga eriyo baan ku jiray inta hadda isbedel ku dhacay baan ku soo laabtay anu shaqada in fara badan oo sidaa oo asluubta kamid ahina way jiraan marka hadda waxay u qaybsan yihiin ciidankii hore oo shaqada la dhibaateeyay oo shaqadiisa lagu soo celiyay iyo kuwii tacaddiga ka qayb qaatay waa laga tallaabo qaaday iyaga qaarkii marka dhaqan xumada aan lahayn ee la dhibaateynayay ee u dhabar adeegay inay iska adkaystaan kuwii oo dhaqankii laga bedelay oo la saxay iyo kuwii shaqadii lagu soo celiyay iyo kuwa cusub oo inta isbedelku yimid macnaha maaragtay la qoray intaas ciidanku isugu jiraan hadda maamulka ciidanka iyo horumarinta xuduudda shaqaalaha ayaa shaqaalaha la sheegaya maxay yihiin bal dadka yara fahansi horta bismillaah shaqaala macnaheesu gabi ahaan horta shaqaala la wada yahay macal ciidanka laakiin ciidanku waa ciidan si gaar u tababartay shaqaaluhuna waa shaqaale shacab ah oo aan tababarkii ciidan qaadanin oo laga soo meeliyay xafiiska adeega shacabka ama loo yaqaano CBD hore loogu yaqaan laakiin adeega shacabka waxa jira laba arrimood oo in la taabta ay khasab tahay baa jira marka koobaad ciidanku had iyo jeer sida loo dhaqmo mas'uulkiisu u dhaqmo ay inta badan u dhaqmaan isbedelkan maanta yimid ka hor waxa jiray ciidan aan hadda ka hor habaysnayn lahayn maamul ay ku soo hirtaan laga neefin jirin su'aalahooda xawashooyinkooda waxyaabahooda aan laga halgami jirin waxyaabaha xunxun oo loo adeegsan jiray waxyaabaha xunxun in ay sameeyaan sida bini'aadanimada inay ku xadgudbaan inay dadka dhibaato u geystaan oo ugu badnaan sidii sargaalkii ugu horeeyay uu qeexayba dhalan gadis wax la yiraahdaa ku dhacay hay-adan oo waa la dhalan gadiyay dad aan dadkeedii ahayn baa ka shaqo galay dad aan dadkeedii ahayn baa sumcadeeda ku tuntay dad aan dadkii u soo tababartay ee khibradda iyo adeegii dhaqan toosin aan soo baranin baa sidoo doona ka yeelay magacii xumaa iyo wixiina wuxuu ku soo haray madaga xafiiska tiitarka xafiisku ku soo haray oo asluubta ahaa marka bari waqtigii hore dhibaatooyinkii jiray ma ahayn kuwa ku salaysnaa
dadkii xirfadda u lahaa in ay shaqeeyaan ee waxay ahayd dad fulinaya awaamiirta markaa la siiyo inay fuliyaan oo aan la barin shuruucdii qaynuunkii iyo maaragtay nidaamkii uu siinayo bini'aadanimada dad aan la barin baa ahayn dadka ka shaqayn jiray laakiin hadda markaad eegto kolley indhihiina waa inay macallin oo taa iyadu xafiiska ma sii faaninayo ciidankana waa ciidan aan u carbinay siday u adeegi lahaayeen una dhaqan toosin lahaayeen una ilaalin lahaayeen maxaabiistan daawadayaal sida aad u jeedaan waxa aanu ku sugannahay xabsiga dhexe ee dowlad deegaanka waraysiyo badan oo aynu la soo yeelanay maamulka kala duwan ee ciidanka komishinka asluubta bal haddana aynu eegno waxay ka hadlayeen ay noo sheegayeen maxaa ka jira xaaladda saxda ee maxaabiistu waa sidee codka maxaabiista ayaanu idiin soo gudbin doonaa meeshana mid baanu idiin tusi doonaa bal waxa ka jira iyo waxay sheegayeen inay isku mid noqdaan maheradaha aanu ku dhaxarkayna jeelku aad bay runtii u badan yihiin halkaasina dukaan kale idinka muuqda oo isna dul istaagi doona meherad shaah baa jirta la leeyahay bal aynu soo eegno nala socda awal magacaygu waa Farxaan Bedel Xasan maxbuus baanahay ka ganacsanaya hadana jeelka dhexdiisa marka waan iska fiicanahay walaalo ana iibinayo suuqa waa la iga soo gadaa kadibna ana xirada dhexdaan ku iibiyaa waxa yar cunada lagu dhandhanansado sharaabka faantada kookada marka maxbuus xidhan waanahay marka waan iska fiicanahay sida kale alxamdulillah maxaabiis baan nahay waanu xidhanahay aanu xidhnaana hadana waanu shaqaysanaynaa masaariif aan ka bixino ama carruur aan ku biishano dawadna aragtaana noloshan ku leenahay alxamdulillah rabbil caalamiin waanu fiicanahay waanu ganacsanaynaa oo meheradahayga xor binooyin anagoo maxaabiis oo xidhan waxa halkan soo gaarsiina waqtiga wanaagsan weeyaan walaal man jaxan maxamed bigsi waa la dhahaa hadda waxaan ku xukumaan 2 sano aan ku xukumanahay meherdan anaale hadda meesha waxaan ku xidhanahay 2 sano iyo 4 bilood 2 sano iyo 4 bilood baday sidii yoon aan jiro waxba iska kaga bedelay marka hore magaalada waxaan ka dagaa saxraamida magaalada iska dhex wareeganaa laakiin hadda shaqaysa ku dhex noqday meesha xarig ugu marka baan maanta حاجة مرة كده كده مصروف يا أنا قدرة يا بصرف حتى قار مصروف كده ماله إني بحاسك بناك بكتشوي وارون دان كذا الله حتى لكن حاجة ما مصاريف تدي حاجة قدرة على أبو حلو بعدين حاجة ما القدرة هي يسوي بسا ساسا قلنا على أبتك قبل يدورون ديك على أبتك وندرس ذا العكتة يلا يسوي بسا كنتا حتى والله يوحنا نروح هذا يدورون حنا ما لكن نسكب بدله ولا مشى أو شغل سنة حتى قار مش شغل سمان هين حتى وسك شغل سا وقت الدين تمرتا ساسا كجورا adeegyada aad meeshan ka heshaan maxaa kamid ah bal haddaad noo sheegto guud ahaan adoo sheegay adeegyada aad ka heshaan jeelka dhexdiisa bal xaaladda jeelkiina iga waran adeegyadan meeshan ka helo waxa kamid horta diin iyo maadi waxaanu barnaa koobaad ilaa labaad ilaa iyo sagaalaad ilaa tobnaad waxaanu helaa diin masaajidka alif ilaa waxaanu barnaa kitaabka quraanka kariimka siiradii rasuulka iyo xadiiska la gadisan adeegyada aan meesha ka helo xurriyad oo kaliya naga dhiman laakiin waxaanu helaa wax la wixii dibadda laga helayay oo dhan waanu helaa marka waxaan leenahay shalayna baroor iyo baahi baan la taagnaa maantana bisaylka iyo beer lagu quraacdiyo burcadka isgaadho baaqi baanu leenahay ee baashaal gaboobiyaha imoodin baydgaab midho la isku beegiyo been maaha maansadu ee waa naas la beegsada iyo bixin ilaahay ee xisbigeenna bilanow kala bixisay baadkoo birmageydadeenni iyo boogta gacanta marise afku waa badweyn iyo biyo maaxanaya barbaartiyo abwaankow intaad aad u baadhaan hadal baa hadweynliya kala baxa bisayl wacan idinkaa bannaanka iyo beledkeenna jooge adduunyadu berriya shalay kama badisa weligeed ee barkhadlaawo waxaa jiray balaayada siyaadsho beelaha sumeeyo budka iskugu dhiibo ka diyaar shabiilke bilicdii dalkeenniya ma hambaynin baadkii qalbigii bukay iyo indhihii bururaan nabadda ku bogsooda leenahay beryo wixiina soo maray baadhbaadhi mayne TB baroor iyo baahima u dambaysay dalkuna bishaariyo sow barwaaqa muungalin aad iyo aad baad mahadsantihin waxaan ku suganay goobtii ay ku daawanayeen TV-ga ayaan ku suganay saad u arag jeedaan waxa ka baxaya halkaa TV-gii baa ka shidan halkaa oo u yaala oo ay daawanayaan garoonka ciyaaraha sidoo kale bal maxaabiista dareenkooda ayaan sii waraysan lahaa xaaladda jeelka daan ka warbixiyo 90% aad bay fiican tahay wax dhibaato naloo geystaa ma jirto waxaanu helaa waxaan u baahanaba adeeg waanu helaa jirdil miyaa la idinku sameeyaa wax jirdil oo lagu sameeyo ma jirto wax hal yaani tacaadi oo naloo geystaana ma jirto
dee waxaa dadka dhafoorkiisa yaa ku warramayaba dee dad waxaa naga maqan bas xorriyaddii bas baa naga maqan waxaa weeyaan arday baan nahay 8aadkii 9aadkii 12aadkii intaba waan u qaadanay imtixaankii waxaa leeyahay magacayga walaal Farax Cumar Sigad waxaan ka yimid Dirdhawo councilka laga soo bedelay meeshan aad arkaysidna wanaag baan ugu soo bedelinay magaca Soomaaliyeed marka beerahan iyaan falanay oo iska leenahay guryaha waaweyn oo galaa wax dhibaan qabna ma jiro saddexdii ibnu aadan ku baahnaana waan helaa jeefkii caafimaadkii iyo cunnadiiba marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan madax banaaniyo dee cafisaan helo walaalo waxaad igu sheegtay carababtay beer baad leedihiin baad tiri marka beertan seedu kale leedihiin waxa ka soo baxay laakiinse sideed u iibgeysaan anu imika beerta shishaaniga le tan nin Cabdi Wahaab liidaba le tan oday kale Cabdi Salaam liidaba iskale hadda wixii ka soo baxa annagoon ba cunna cidii doontana way iibsaa xasiida waa la iibiyaa meesha lagu iibiyaa ta kale maqaaxiya jira shaaha lagu iibiyo bunka ganacsiyo kale wixii magaalada aan uga baahnayn baa meesha lagu dhaxiibiyaa meeshana waa meel aad baaxadeedu ay u ballaaran tahay biyihii adiga arkaya caafimaadka meesha iyo nadaafadeedana dee aragti waxaad arkaysaa indhahaagaaba ku macalinaba maqaaxidaada magaceed maqaaxidaada waxaa la dhahaa hoodo shaaha maxaad naga siinaysaa koobkii koobkii labaatan la siinaya maadaama sokortu qaaliyowday sixir bar baa jira sokortu baa nagu qaaliyowday marka waxaan siinayaa koobkii 20 riyaal saa u jeedaan shaahi baanu cabaynaa maqaaxida hoodaanu ka iibsanay bal waan ku dhadhaminaynaa maqaaxida hoodo sonkortaad ku yara badisay laakiin maadaama qaali yahayba macaamiisha jecel buu sonkorta waxaan ugu badinay marka balshaan u cabbi doonaa qaybaha kale ee deetan waxaan u gudbi doonaa jeelka intaanu ku guda jirnay jeelka gudihiisa ayaa waxaanu arkaynay xaqiiqatan waxaanu aragnay askari iyo maxbuus wada ciyaaraya bal iyagan doonaya inaan wareysano oo aynu aragno bal waxaad aragtaa inaan wada ciyaarayno maxbuus taaramay oo yacni qaatay nidaamka jeelka si fiican u fahmay kana taaramay xumaantii iyo dhibaatadu samaynayay waad aragtaa waxaanu wada ciyaaraynaa bahashan lagu ciyaaro alaabtan khatarka sidaa darteed dawaabaad arkaysaa waad u jeedaa inaan macnaha wada ciyaarayna maxaabiistii oo saxday bal ka waran askartii meesha ilaalisa kula ciyaaraysa aad baan ugu faraxsanahay horta inaan la ciyaaro maamul iyo maxaabiis ninkiina maamulay marka farxadan la soo koobi karin bay tahay inaan la ciyaaro aniga xukunkaygu waa 12 sano weyn marka waxaad ciyaaraysaan hal ciyaartii dama wala dama dama bal ciyaaraanu aragna marka ka laga badiyo maxaa lagu xidhayaa waa kala badinayaa waa furar casaan iyo furar orange si loo kala fahmo ka joog waa yaahu wala iga cunay si fiican bay baasha u xafideen naga ilaalite anna haddaan ku dhufto ciyaar caalami weeyaan ميتان نقدر حاجة هتجي بس والله يا وان كقاط واي بالقيبة كلا وقت كان الناس ما حين قيبة كلا تشيل كانوا قدمنا سادو الشدان قاب تانينا وقاب كميدا jeelka gudihiisa oo ah faarad oo farsamada ay ku bartaan bal iyadana aynu galno oo aynu eegno maxaabiista ku xidhan aynu wareysano Ahmed Maxamed 5 sano meeshan ma ka shaqaysaa waan ka shaqeeyaa xaga waxba ka bartaa suuqlad bartaa way waxna waan baraa waxna waan bartaa laba dhaaba waxa kamid ah sariiraha sida alxanka albaabada miisaska xafiisyada waxyaabo badan marka qalabkan aad ku sameeynaysan yaa idin keen dawladda noo keentay dibadda intaad geysaan baa la iibiyaa dakhligu idinku idin soo xarooda annaka maxaabisaan budub noogu soo noqda
bal ka waran dareenkaaga adigoo xidhan inaad shaqaynayso oo farsamo baranayso alxamdulilah aad iyo aad lama soo koobi karo dareenkayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay daawadayaal soo jeedaan goobtanna waa goobtii farsamada gacanta ee lagu baranayay harqaanka ama mashiinka dharka lagu talo waxaan usoo galnay macalinkii oo baraya bal aynu isagana weydiino su'aalo dhowr ah waxaa weeyaan ani waxaa la dhahaa Axmed Jahaad Cumar maxbuus mihi shaqaale maxbuusiinta u shaqaalaysan maanahay kolka waxaan baraa farsamooyin kala duwan sida faaradda ani macalin khaas anahay harqaankaan baraa marka waxaan hadda aan tababaray 15 maxbuus oo mataqaanaa wax bartay 8 ayaga way fadhiyaan 2na way baxeen inta kalena xaraday noogu jiraan kolka wax kasta dharkan ay qabaan hadda nafteeda ayaga toshay gacantooda ku toshay maxbuusiinta dharka ay haystaan naftooda ayaga u tola kolka wixii saa'ido mataqaanaa harqaamada markay ka xumaadaan baan u hagaajiyaa mooyeen ayaga isticmaalo wax kasta ayaga sameeyo oo mataqaanaa tosho maxabista oo farsamada maadaama aan baray ayaga dharkan ay qabaan ba ayaga toshay hadda tusaalahan dharkan ay tolayaan marka halkay ka keenaan qalabka sidaad sheegteen waxa uu iibiyay dawladda u iibisay laakiin dharkan la tolaya iyo maryahan halkay laga keenay dharkan kulley caawimaad badan oo aan iskaga baahannahay haba ahaatee ilaase dharkan xafiiska noo keenay xafiiska dhaqan toosinta asluubta noo keenay marka iyagoo daaqooyina naloo keenaa marka way jarjaraan way tolaan ka bacdi markay tolaan ayaga dib loo siiyaa oo u xidhaa marka sidaas weeyaan halkan aad ugu sawiraysaa marka miyay tolay maya dharkan hadda tusaalahan meeshan sawirada aad ku aragtaan blackboardida mataqaanaa dharkii oo mataqaanaa yaa la jarayaa halkaas aan ku tusayaa mataqaanaa markaan ku tuso halkaas ay ku jarayaan markay jaraan calaamadiisa dharka noociisiina halkan aan ku tusayaa mataqaanaa blackboardina saasaan ugu tusaa barbaruud waa la yidhaah 15 sano walaal farsamada waxaan bartay dawaarkaan bartay tafaaradaan bartay tanaan bartay maryahan xidhanahay anaa toshay macalinku wuu nala joogaa si wanaagsan buu wax noo baraa si wanaagsan baan wax u baranaa wax cidhiidhiya ma hayno wakaa daawadayaal saad u jeedaan isla waxaan ku sugannahay jeelka gudihiisii qaybtanina waa qaybta caafimaadka amaba dhakhtarka uu leeyahay jeelkani oo maxaabiista lagu daweeyo ku xidhan jeelkan bal waxaynu wareysan doonaa dhakhaatiirta jooga iyo ciddii aynu kula kulanno محيدين محمد عبد الله ما شقالة هاي مثل محبوس بات ما شقالة هاي هل هو أو بدي هل تدك الجودة ويني محامسة بالكورن بكان كود مو بدين هم سويرين بكان كود ما بدنا أدبو يرين بكان كود حنونا ضوء بدن كود عم حابسة الدويسان حي حنونا كود عايز تبدأ حويا يفكش كويا تبدأ oo infection ma ku dhaca inta badan waxa ku dhaca maaragtay muruqyada kale oo ku dhacaan oo sababtoo ah intooda badan oo qaar badan oo sport aan sameeyeen baa jira maadaama qofku sport sameeyo waayadii hore sport ku jiri hadda imika sport baa jira kubad baa la ciyaaraya waxaas ku dhacaan inta xanuunada u badan ee markaa meesha aan ka duwanay waa infection weeye waxa fadhiistaa saddex waqti baa fadhiista waxa weeyaan MT weeyaan oo doctor specialist isna weeyaan saddexdoodu way soo galaan marka in soo kooban yahay xarunta caafimaadka waxay ka kooban tahay laboratory waan leenahay oo laboratory waan leenahay OPD-gina waan leenahay qaybta chiefkina waan leenahay storeki iyo pharmaceutical-ki oo tafsiir u baahay نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرجع مفسر فيه لتبين للناس ما نزل daawadayaal sida aad la wada socotaan wali waxaanu ku jirnaa isla jeelka gudihiisa iyo qaybihiisii kala duwanaa qaybo badan baad soo daawateen haddana waxaad sugaysaan oo qalbiyadiinu isweydiinayaan maya dumarkii jeelka ku xidhnaa balse way kala go'an yihiin dumarka iyo raggu hadda waxaynu geli doonaa qaybta dumarka na soo raaca
daawada ilsaad u jeedaan waxaanu ku sugannahay qaybtii dumarka codkii masaajidka jeelka ayaa baxaya laakiin waxaan filayaa inaad maqlaysaan ku soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa caasho luul buux rooble imsaad xidhan tahay imsa sanaad laakiin soo ku xukumanta waxaan ku xukumanay 16 sano iyo 10 bilood hadda waxaa ii dhammaatay bishii 7aad bishii 8aad baan hadda ku jiraa xaaladda jeelka dumar ahaan iyo jeelka guud ahaanba ka war aad iyo aad bay xaaladda jeelka u fiican tahay waqtiyadii hore dee inkastoo anu waxba aanan ka sheegi karin waxyaaleen ka maqli jirnay iyo waqtigan iminka joogtada waxaan arkayno isbeddel aadaa u dhexeeya xorriyaddeeda waa noo ilaaliyaa tahaweenimada weliba si gaarana noogu ilaaliyaa wax macnaha maanta aan caqabad oo jirto oon ka sheegi karnahay meeshan ma jirto farsamadii gacantaynu hadda ag fadhinaa mayaad barataan farsamadan gacanta aad iyo aad baan u baranaa wakaas dumar intee leg baa meeshan ku xidhan hadda waxaan ku joognaa 18 dumar ahi adu maxaas baa tahay mise xaasmatay mayaxaas baan anigu marka waqti ma u heshaa faamilkaaga waqti kasta ay soo booqdaan waa la ii saaraa waan islaa waan la kulmaa saacadana na siiyaa si fiican baan u wada sheekaysanaa waa ku kaa caruur ma dhashay ahi caruurtaadana iyaguna sidoo kale waqti ma u heshaa ha ciyaalku dee waxbarashay kulley ku jiraane hadda intaan meeshan aan ku xidhnay mid ka u roon baa 2 jeer yimidee kuwa kalena hal mar oo kale yimaadeen wakaa si fiican waxbarasho ku jiraan laakiin laydima diiday cidin soo boqotay cidna nooma diido xitaa daaradan halkan geedkan weyn baan noo soo fadhiisay dadkayga meelaha dheerdheer looga imanayo dadka kale jaaniska aysan jaaniska anu wadi rabo waxaan ka imid macnaha jaaniska dadkan ay helaan jaaniska si fiican iyana na siiyaayo meel dheer bay ka yimaadeen in badan ha wada sheekaysaan xaq siiya baa la yidhahdaayo aad baan noo ilaaliya ka dumar ahaan maxaad adeegood ka heshaan goobtan waxaan u baahan oo dhan waan ka helaa cuntadu iskugu kaya dhammaystirantahay noo dheelitiran tahay caafimaad ahaan waan ka helaa haddii caawa aan xanuunsano farmasiga nagteeda ayaan wax waan u baahanayna naga siiyaa haddii uu farmasiga ay caafimaadku dhaafsan yahayna isla markaa waa ambalaasti baa diyaar oo habeena dhaarno u taagan markaaba riiflaal bana noo qaadaa magaca walaal Fatxiir Shiid baa la yiraahdaa gabadh walaasheen soo booqday gabadhan la fadhidan soo booqda walaashay ah والله جيل كوا جيل آد وشرف بدن أو قيمة بدن كومشنير كميشة جوجا معمول كميشة جوجا عيدا كميشة جوجا ودد آد وقالية وأنا حرية آد وشرف بدن ون آد يآد وهم بليين إنه مركز تاني ما نص شرف لان قف كيجا وارجنا وحكز تو معمول كأي دت كيجا ربان وينو كشيغان وأنا لو سود دايا سوى عم بنا لو سود دويا كومشنير كميشة هايستنا آد بشير آد من آد وشرف بدن وين مسؤولين تيسا كهوسيسا ورق آد وشرف بدن عيدا كميشة جوجا ودد آد وشرف بدن وماشا أدركي شيء واسع كرامة ضلع سوى عن لجوسه دوين حقوق دي القفكة اللي إيه جاي أديك لقوا قيمين أيو والدين تلا قيمين أيو آد بانو هم بلاين عيدا كميشة جوجا ولا والله هتسنت ولا لكن مركل لجوسه دين يي waxaan arkaynaa in dadku daaqada ama gidaarka iska wareysanay laakiin adiga waad soo gashay gudihii baad u soo gashay walaashaad hor fadhida waqti miyaa lagu cayimay intaad la sheekaysan maya wallahi la ima cayumo si sharaf leh maamulka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya si sharaf leh noo soo dhaweeyaan walaashay si sharaf leh ugu nooshahay anagu si sharaf leh loo soo dhaweeyaa cid kasta oo meesha joogto in xornimo aad u balaaran ay hesho ayaan aaminsanahay walaasha markaad soo booqato ama markaad soo booqan jirto waxyaabaha la yaab kale kaaga sheekayso ee istiraado jeel dhexdiisa kama suurtoobi karto ay kaaga sheekayso ay ku tiraa waxaasa jeelka ka jira ee aad u qaadan weyday markaad u timaado maxaa kamid ah walaashay wallahi aad bay uga mana sheegataa waayo dee anigii baaba u markhaatiyo mar walba xornimada ay iyadu haysato anigiina aan helayaa marka waxa ii cadaynaysa walaashay inay xornimo ku nooshahay oo nolol qurux badan ku nooshahay taan anu helaysaa anigii banaanka ka imday baa xornimo free helaya wanaag helaya maamulka si fiican ii soo dhaweynayaan iyaduna taatu ka ballaaran bay ka heshaa aadna way u ixtiraamaan saad u jeedaan maanta waxaan ula qadaynaynaa maxaabiistii ku xumeed jeelkan dhexe ee magaalada Jigjiga iyagaan waqtigii maanta aanu la qaadanaynaa iyagaan ula qadaynaynaa runtii oo laga cunno macaahiinba maxaabiista adeegyada siisaynaanu soo aragna marka laga imaado baahiyaha ay qabaan ee isleedahay way qabaan maxay yihiin horta bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan horta qof bilaadan baahi kama dhamaato oo baahi baan ka dhargay qof oran karay ma jiro intuu nool yahay
qof xidhanna dee waa dareemi kartaa qof xidhan oo maanta waayo badan buu ka xidhan yahay qofku marka la xidho wax far badan buu ka xidhan yahay laakiin haddana wacyigii jiray iyo wacyiga maanta jira markaad aragto waa kaafi kala dheeri bay soon tiraa dee berigii hore qofku caawa nabad ma ku seexan haddaad seexatana ma soo toosi buu ku fikrayay xaaladdii hadda ku hor jirtay maanta laakiin waa maxbuuska xaquuqdiisa ka doodaya ee ku dhahaya waxaasaa iga maqan buu ku dhahayaa maxaabiista meesha ku xidhan markaynu dumar iyo rag u kala qaadno dhaqan celin miyay ku jiraan haa dhaqan celin way ku jiraan dhaqan celintu dad maxaabiista meesha ku xidhan dembiye kala duwan bay ku xidhan tahay oo fara badan bay ku xidhan tahay dembiyada kala duwan waxa soo raacay waa dhaqan celinta dhaqan celinta waxa weeyaan waalidkii qofka uu kari waayo balwad buu ka kari waayey wuxuu kari waayey seexan waa buu noqon waxbarashuu ka kari waayey qofkaasa markaa lasoo xereynayaa oo la leeyahay ha la dhaqan celiyo qofka aabbihii iyo hooyadii iyo walaalkiisii dhalay kari waayaan yaa la dhihi meesha lasoo xukumi halkan la keeni waxaa la rabaa in markaa dhaqan celiso uu taaramo oo qof fiican oo wixii reerkoodu uu ka soo xidhay qoomeyn inuu noqdo isagoo saafi baxaa la rabaa saad sheegtad ka dhawaajisay dad dhaqan celin oo waalidkood ay soo xidheen baa jira amaba balwad ha ahaato amaba siyaabo kale oo iyagu fahmi waayeen ha ahaatee marka dadkaasaa loo soo xidhay ee dhaqan celinta lagu soo xidhay iyo dadka dembiyada waaweyn gale falalka waaweyn maxay sumeel ugu xidhan yihiin mid waxa weeyaan waa xabsigu horta mid uu cusub yahay xabsigu maadaama uu cusub yahay wax yar buu jiraa 2 sano iyo 7 bilood buu shaqaynayaa xabsiga gibiisuba 2 sano iyo 7 bilood maadaama markaa shaqaynayo weli waa wax ka dhiman nidaam inaga dhiman weeyaan in aan qaybtii carruurta iyo qaybtii dadka waaweyn aan helno nidaam inaga dhiman hadda iyadoo saasa waxaan la tacaalaa qolalka waxaan siinaa qolalkan dadka yaryar baanu siinaa qof weyn baanu mas-uul uga dhignaa dadka yaraa iyada layskuma sii wadiin karo kureer oo dhaqan celin loo soo xidhay oo yaryar oo 12 jir 13 14 hadday soo xidhmaan qof weyn baa looga dhigi mas-uul oo guriga kaabagalaska noqonaya si ayna u qaadan dadka waaweyn ee dilaaga wax soo laayay si ayna ula xidhmin dadka yar gooni baa loo xereeyaa guriga waxa kaabagalaas ka noqonaya nin weyn oo mutakar ah dadka yar saasaa loola dhaqmaa dadka waaweyn markay noqoto dadka weyn waa soo dhex marteen dee wacyiga ka jira waxbarashada waad aragteen qaybta faaradda waad aragteen oo qaybta faaradda dee arday baa ku taxan tafsiirka arday baa ku taxan qur-aanka kariimka arday baa ku taxan dugsigii wuu jiraa isaguna marka dadkaasi iyaga oo wax meeshaas ku imanaya qofkii ugu aqoonta badnaa hadday cilmi noqoto hadday dunuubta noqoto qofkii ugu aqoonta badnaa dadka bilaadanka iyo qofkii ugu damiinsanaa baa isku imanaya xabsiga marka cilmiga in la kala faydaysta la rabaa marka cilmigaas aan u qaybinaynaa waa tahay laakiin haddii aan ku idhaahdo maxay hayday waxaan ku aragnay meesha ganacsiyo ka furan oo dukaamo yaryar lagu iibinayo shaahiyi iyo maqaaxiyihi iyo wixii ka furan beero la bayrayo oo la leeyahay waxaanu ka soo saaraynaa alaabto ama jeelka dhexdiisa xasiidaha iyo waxaana lagaga iibsadaa wixii kalena ama waanu cunnaa ama dibaddaana loogu iibgeeya bal alaabaha la soo iibinayo iyo bal iiga waran arrintaasi saygii suurtagal ku noqotay waxay suurtagal ku noqotay dadkani horta dad xarig dheer ayaa jira oo muddo badan xarigga iska tirsanaya ilaa xilligu alla sii deynayo oo xarig dheer oo dembiye soo galay oo dad laayay markaa dadka laayay hoygoodii bay noqotay meeshu ilaa intuu alla ka sii deynayo hoygiisa wuxuu rabaa nin walba inuu wax ka soo saaro uu tabac geliyo beerta kolkay noqoto waan u qaybinay oo calaa 6 mitir baan ugu qaybinay calaa 6 mitir kii basal ka soo saari kii geli ka soo saari calaa 6 mitir baan ugu qaybinay qaybta waad aragto beertaas ugu qaybsan tahay xagga cooshadaha yarka markaan noqono marka hore wax yar bay ka bilaabeen shaakiriya iyo fuul ku sameeyaaba cooshadiisa markay u kordho adeeg noqoto adeegga bidabka dadka soo buuqanaya bidabku hantidii u dhiibanayaa bidabkii baa marka hantidii u qaaday hantidii baa la keenayaa hantidii marka loo keeno hantidii baan ka baadhnaa bidabka dadka u fasiro qoyskiisii yaa u imaanaya qoyskiisu markuu yimaado hantidii u dhiibanaya hantidii baa loo soo gelinaya hantidii baan naguna ka baadhaynaa hantidii markaan baadhno adeeggii meeshan gelay ee nidaamka ogolaa markuu noqdo wixii sharaabka iyo wixii kale nidaamka markuu noqdo waan u fasaxaynaa meerdiisa u dhiganayaa saasuu kaga iibinayaa ciddii wax haysata dee dadkooda lacagta u keeno ehelka dadku waa bidsa waa loo imanayaa waa la soo buuqanaya qofkii marka cidda soo buuqata dee hadday kharaash yar siiso kharashkaasuna wax ku iibinayaa kolba wixii xiisad uu xiisaynaya ka gadanayaa saasay u wada nool yihiin
waxaan isku diri jirnay exercise-ka oo lagu ogaanayo ardayga casharkii loo soo dhigay inta uu fahmay iyo inta uunan fahmin inta uunan fahminna isla mar ahaantaana aynu si gaara iyo si guudba aynu ugu sharaxi jirnay